mid ka mid ah coinanka lagu hadalhaynta badan yahay suuqa cryptocurrency mid ka mid ah coinanka bixiya fursadaha tradingka ugu fiican suuqa cryptocurrency mid ka mid ah coinanka bixiya faa'iidada maalinlaha ah faa'iidada isbuuclaha iyo faa'iidada billaha ah Pitensor Tau mid ka mid ah coinanka ugu mucjisada badan suuqa cryptocurrency coinku sii kara 24 saac gudahood 20-30% coin daada kara 20% coin leh fursado kala duwan haddii ahaa lahayd investment iyo trading in badan saaxiibada ugu xiran waxay soo weydiiyeen Tau ama Pitensor goorma ayaa ka soo hadlaysaa saaxiibayaal maanta ayaan ka hadlaynaa barnaamijkeena fursadaha coinska ayaan diiradda ku saaraynaa fursadaha caqabadaha haysta iyo coin leh mashaariic kala duwan haddii ahaa lahayd AI iyo blockchain-kaba saaxiibayaal muuqaalka like saar YouTube-ka subscribe saaro saaxiibadan la wadaag asla tagno screen-ka haddii aan isla tagno screen-ka coin-ka maanta inoo saaran waa Pitensor Tau haddii aan ka bilowno market cap and ranking market cap-ka coin-kan large cap miya middle cap miya low cap saddexdaas midka uu yahay ee aan fiiri doonaa haddii aan tagno saaxiibayaal coin market cap asla tagno waxaan soo galnay coin market cap waxaan ku qoraynaa meeshaan waxaan ku qoraysaa Tau ayaa ku qoraysaa Tau Pitensor saa ku soo baxaya gudaha usoo galnay waxaan u jeednaa market capkiisu inuu yahay 2.3 billion marka waxaan u tixgelinaynaa middle market cap sidoo kale rankingkiisa waxaan u jeednaa inuu marayo 33 marka ranking 33 ayaan leenahay kana waxa waaye middle market cap marka middle market cap iyo 33 ayaan u tixgelinaynaa qodobka labaad haddii aan fiirino utility and use case coin-kan utility-giisa iyo use case-kiisa ayaan dul istaagi doonaa sidoo kale shaqada uu coin qabanayo waa maxay sidoo kale hype miya mise waa xal caadiyan waxa waaye waa coin xal ah oo project la waaye qodobka saddexaad ee utility-ga haddii aan fiirino qodob koowaad waa rewards waaye Pitensor ama Tau shaqooyinka maaragtay dadka si guud qabta oo system ka shaqeynaya in lagu siiyo reward Tau ahaan ama Pitensor ahaan sidoo kale incentive system wax la yiraahdo ayuu leeyahay marka taas oo dhiirigelisa yani dadka ka shaqeeya maaragtay systemka maaragtay taas oo ah hab yani validation ah marka waa hab yani lagu abaalmariyo oo dadka ama lagu dhiirigeliyo dadka maaragtay qayb qaata shaqooyinka si guud horta coin-kan waxa waaye laba project ayuu wataa blockchain iyo AI ayuu isku yahay taas marka waxay keenaysaa in AI networks fara badan ay ku soo xirmaan waana midda maaragtay coin-kan project-ga xoog la u yeelayso waaye marka nidaamkan loo yaqaan marka incentive-ka marka system-ka waa nidaam marka lagu abaalmarinayo ama lagu dhiirigelinayo dadka ka shaqeeya networkska oo ah hab yani maaragtay Tau ahaana in maaragtay loo siiyo qodobka saddexaad ee uu qabto waa staking-ka waxa waaye yani hab dadka maaragtay lagu abaalmariyo oo dadka maaragtay Tau ay soo dhiganayaan staking bay ku sameynayaan waa dadka validatorska ah kadib ayaa dadkaas maaragtay rewardskooda iyo shaqooyinka ay qabtaan ay ku sii helayaan Tau staking kii oo qofka inta lacag u dhigto lacag lagu shaqeeyo maahan kan waxa waaye Tau in laga dhigo as a validator then hadhow lagu soo celiyo maaragtay abaalmarinta ka heshay qodobka afaraad waxa waaye governance waaye taas oo u suurgelinaysa qofka inuu cod iyo talo ku yeesho systemka isagoo adeegsanaya Tau qodobka u dambeeya waxa waaye network security waaye network security waxa waaye in ay dadkan maaragtay validatorska ah ay xaqiijiyaan tayada systemka inay xaqiijiyaan si guud marka AI-yadu waxay u baahan yihiin network ay ku soo xirmaan ay u baahan yihiin
AI modeliska networkaas in systemkiisa tayadiisa la hubiyo shaqada ugu weyn qabta kaas waa haddii aan fiirino tau use casekiisa daan fiirino use case waxa waaye AI marketplace waaye marka hore AI marketplace kan shirkaduhu waxay ka helayaan AI models kala duwan ay ka helayaan marka yani suuq balaaran oo aan cidna u xirnayn waaye oo modelka ay rabaan ay ka heli karaan qodobka labaad waa machine learning waxa waaye dadkan yani ku jira systemka in ay wadaagaan maaragtay research ama cilmi baarayaal kala duwan isku yimaadaan ay xogihii iyo updatedii ay wadaagi karaan qodobka saddexaad waa decentralized AI decentralized AI-gu wuxuu suuragelinayaa in la helo AI madax bannaan oo aan shirkad iyo maamul iyo cid kale hoos imaanin oo si guud dadku uga faa'iideysan karaan qodobka afaraad AI data sharing in la wadaago macluumaadka iyo xogaha in lagu wadaago qodobka ugu dambeeya oo ah AI economy-gu marka wuxuu suuragelinayaa in lacagta maaragtay lagu bixiyo tau in lagu baxsho meeshii la isticmaali lahaa lacag kala duwan in lacag nidaamsan oo tau ah systemka dhex mariyo qodobadan marka ayaa ugu muhiimsan use casekiisa haddii aan fiirino qodobka shanaad oo ah economics-ka qaabka coinka loo kala haysto iyo supply-giisa fiirino coin market cap ku laabano haddii aan soo dhaweeyo waxaan u jeednaa maximum supply tau inuu yahay 20 milyan sidoo kale total supply inuu yahay 20 milyan circulating inuu yahay 11 milyan marka 10 milyan baa banaanka jirta caadiyan marka waxa waaye waa coin maaragtay runtii mirihiisu inta badanba ay banaanka jiraan inkastoo si guud mirihiisu aysan badnayn dadka marka holderiska waxa waaye 39 qofood 39 qofood marka dad yar baa haysta aad buu u yar yahay mirihiisa iska yar marka waa sababta maaragtay aad uu kacayo aadna u daadanayo waa coin history haddaan fiirino coinkan aan geysano all waxaan u jeednaa coinkan inuu kasoo galay lacag yar inuu kasoo galay ayaan u jeednaa suuqa sababtii waxaa meeshaan fiirisid wuxuu inoo sheegaa 0.12 ayuu inoo sheegaa sanadkuna waa 23 waa 2023 meesha ugu sarreysay uu gaaray waxay ahayd 650 mar kale soo dhacay wuxuu yimid ilaa iyo 231 mar kale ayuu zoonkii maaragtay ku laabtay oo wuxuu gaaray 708 hadda marka waa dhacsan yahay 208 ayuu maanta marayaa marka waa Chinese weyn baa meesha ka furan runtii qodobka toddobaad coin news waaye maxaa ka fiirinaysaa partnershipska coinanka ula galayo listing haddii lagu soo sameeyayo waa fiirinaysaa updateska macluumaadka soo baxaya waa fiirinaysaa asagana qodobka sideedaad community and hype haddaan fiirino bulshada coinkan sidee u fircoon tahay waa inaan fiiridaa hadda coinkan dad baa ma haystaan laakiin waxaa waaye coin oo maaragtay dad xoogaa lacag haya u badan yihiin marka 11 milyan oo 139 qofood haystaan waa dareemi kartaa runtii marka macluumaadkiisa kala soco X Telegram iyo Discord activity qodobka sagaalaad haddaan fiirino technical analysis-ka aan gudaha u galno waxaan ka fiiri doonaa support and resistance levels trend uptrend downtrend xaaladda ku sugan waayna iyo RSI ayaan ku fiiri doonaa aan soo kacsano trading view gudaha u soo galnay aan qorno tau okay waa kana daily time frame ayaan joognaa okay waxaan u jeednaa marka coinka inuu horta xilligan uu si guud ku jiro xaalad down trend ah inuu ku jiro ilaa iyo maaragtay wuxuu soo daatay markii u dambeysay 29% haddii aan fiirino si guud zoneskiisa waxaan u jeednaa in zoonkan uu yahay zone runtii aad iyo aad xoog badan oo in badan laga soo celiyay coinka ayaan u jeednaa
marka coinkan zonka hadda loo soo wado hadda zonkii wuxuu xooga badnaayo kale oo in badan iska celinayo waa kana oo soo jabsaday marka hadda zonka u socdo waa zonkan inuu maaragtay marka la soo taabto ayuu rabaa marka haddii aagaas u yimaado waa janis waaye waa aaga ilaa 205 waxa uu jiraba hadduu imaan karaa marka zonka ugu dambeeya ee coinkan uu yeelan karo si guud waa midkan marka oo ah 184 marka runtii waxa waaye hadduu meelaha yimaado waa janis coinkan waxyaabaha cajaayib kale uu sameeyahay wax ka mid ah haddaa fiirisid mar allaala markii uu soo daato tusaale ahaan fiir intoo kale wuxuu ka soo daatay 321 waxay ahayd bishii May 2026 marka meeshaan waxaan u jeednaa inuu yimid zonkan ilaa iyo June 6 ayuu yimid marka dhaqaaqa marka uu sameeyay aan fiirino marka dhaqaaqa uu sameeyay aan fiirino wuxuu tagay ilaa iyo maaragtay 289 buu tagay marka oo 54 ayuu dhaqaaqay marka isagoo caadadiisa mar walba oo coinku soo dhaco oo Amazonka ha yimaado Amazonka si ay yimaado waa kii dhaqaaq weyn sameeyo waay marka coinkan maadaama hadda si guud marxaladda suuqa hoos dhac ku jiro dhaqaaq weyn ayuu sameyn karaa oo all time high-giisa uu ku laaban karaa una dhaafi karaa taas weyn ogaataa marka coinkan wuxuu u baahan yahay in la holdigareeyo waxa u fiir chartiga markaan fiirno dad fara badan ayaa maaragtay coinkii saa u fiirinaya dadka haysta dad weylis u badan yihiin marka mar walba ay coinku cawas gadayaan oo soo tuurayaan taas weyn ogaataa adigana waa inaan ka faa'iideystaa dhaaqyada kale marka saaxiibayaal si guud haddaan fiirno dhinaca indicator-ka oo kale indicator-ka haddaan soo kicino RSI-ga waxaa u jeednaa inuu marayo 37 oo ku dhow yahay oversold ay u socdaa marka meelihii u sareysay la geeyana 67 ayuu ahaa ilaa iyo aagan oo 66 marka runtii meeshan waxaa waaye haddii uu kasoo kala wareego oo soo sameeyo cross dhaaq weyn buu sameynayaa marka isha lagu hayo coinkan aniga waxaan hadda bixinayo waa un talo ma ahan maaragtay gal iyo maaragtay go'aan qaadasho ma ahan taas waa inaan ogaataa marka saaxiibayaal zoneskiisa ugu dhow aan soo laabano qodobka 10 haddaan fiirino risk analysis-ka will manipulation iska fiiri risk regulation iska fiiri psychological iska fiiri security risk iska fiiri qodobada dhan muhiim ku yihiin qodobka 11aad talayo muhiim ah raacin mubuuninta sidoo kale samee cilmi baaris ku gaar ah do your own research haddii aad haysatid coin kala duwan portfolio-daada kala duwan aad ma santahay haddii halkan soo gaartay qof adag ayaa tahay muuqaalka like saar YouTube-ka subscribe saaro gambalelka furo saaxiibada la wadaag way noo kulantay dambe